أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمه دقنك salaadiinta cuqaasha madaxda kale ee siyaasiyiinta dhalinyarada aqoon-yahanka guud ahaan shirweynahan ka soo qayb galay marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka dhammaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaanka bacdi waxaa sharafi ah halkan inaan mahadcelin ballaaran uga soo jeediyo ismada dhaqanka Maxamuud Harti ee shirkan wadatashiga ah ee Ceel Daahir ka qabsoomay labadii cisho u dambeysayna qabanqaabadiisa iyo taladiisu ay socotay ka soo qayb galay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. waxaan leeyahay ismo jazakallahu khayran waqtigiina iyo taladiina iyo maskaxdiina aad shirweynaha wadatashiga ah ee ismada dhaqanka Maxamuud Harti aad geliseen aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin. waxaan leeyahay jazakallahu khayr, ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro. dadweynaha kale iyo odayaasha kale iyo akhyaarta kalena sidaas la mid ah ayaan iyagana uga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkooda. aad iyo aad baad dhammaan u mahadsantihiin. shirkan dulucdiisa iyo mawduuciisa koowaad waxa weeye muhiimadiisa koowaad in la bayaamiyo ummadda loo sheego beesha Maxamuud Harti waa beel ballaaran, isimo, cuqaal, dhaqan, siyaasiyiin, qurba joog, ganacsato, wax walba leh. waxaan halkan rabnaa inaan ka cadayno oo ka sheegno beesha Maxamuud Harti magaceeda iyo taladeeda haba yaraatee cid si gaara ugu tarkifali kartaa inaanay jirin. horena saasay ahayd. beeshani waxa weeye waa dhaqan ku nool, tala ku nool, soo jireen. waxa ay halkaa ku soo gaadhayna waxa weeye wadatashi, ixtiraam iyo wadajir bay halkaa ku soo gaadhay. waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ay khusayso iyo ummadda Soomaaliyeedba in aanay jiri karin cid si gaara ugu tarkifali kartaa magaca iyo talada Maxamuud Harti haddii Ilaahay idmo. mawduuca koowaad ee muhiimadda shirkan uu leeyahay qodobkiisa koowaad waka. intaa ka bacdi wixii kale oo tala ah iyo tafaasiil iyo nooc kastaba ay tahay talada uu reerku u baahan yahay iyada oo urursan isimada iga dambeeyana ay taaban doonaan wixii karaama waxa weeye oo komareke iyo qoraal ah halkan ayaa laga soo jeedin doonaa haddii alla idmo. aniga shirka furitaan ayaa muhiimadeyda koowaad tahay iyo ujeedadiisa guud inaan caddeeyo hadalka intiisa kale iyo faahfaahinta waxaan uga baxayaa isimada dhaqanka ee Maxamuud Harti ee goobta fadhiya ee shirka daadihinayay ayaan uga baxayaa insha Allah taala. wixii kale oo tafaasiil ahna waxa weeye waa la bixin doonaa. aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaan shirweynaha idinku mahadcelinayaa. waana mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.